baarlamaanka dalka Ciraaq ayaa goor dhaweyd meel mariyay qaraar ku baaqayay in dhammaan ciidamada ajnabiga ay ka baxaan dalkaasi kadib markii uu Mareykanku dilay jenaraal sare oo ka tirsan ciidamada Iiraan. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahiro ka soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni. go'aankan ayaa baarlamaanka dalka Ciraaq u codeeyay maanta oo Axad ah kaasoo amraya in ay dhamaatay joogista ciidamada shisheeye ee dalka isla markaasina hawada dalka Ciraaq aan loo adeegsan karin dhaqdhaqaaq dhinaca duqeymaha ee hawada ah. qaraarka uu gaaray baarlamaanka Ciraaq waxaa ka maqnaa xildhibaanada matalayay kooxaha Sunniga iyo Kurdiska degan dalkaasi. sida TV-ga qaranka Ciraaq uu baahiyay baarlamaanka Ciraaq ayaa sidoo kale wax kama jiraan ka dhigay dalabka xukuumadda Ciraaq ee ku aadan kaalmada isbahaysiga caalamiga ah ee ka dhanka ah ururka Daacish. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Ciraaq Caadil Cabdulmahdi oo hadal dheer ka jeediyay ka hor qaraarka baarlamaanka ayaa sheegay in ciidamada shisheeye ee dalkiisa jooga ay noqon doonaan kaliya in ay tababaraan ciidamada Ciraaq isla markaasina baarlamaanka dalkaasi ay u taalo go'aanka gaarista muddada ay joogayaan waddankaasi. sidoo kale Caadil Cabdulmahdi ayaa tibaaxay in xukuumaddiisa ay diiday dilka loo geystay jenaraal Qaasim Suleymaani taliyihii ciidamada Qudus ee dalka Iiraan. dhinaca kale hogaamiyaha ururka Xisbullah Sheekh Xasan Nasrullah ayaa maanta sheegay in dilka Qaasim Suleymaani ay tahay bilow taariikh cusub oo aan ku ekaan doonin kaliya dalalka Ciraaq iyo Iiraan balse ay saameyn doonto guud ahaan mandiqada bariga dhexe. hogaamiyaha ururka Xisbullah oo hadalkan ka jeediyay xaflad lagu taageerayay jenaraal Qaasim Suleymaani oo ka dhacday duleedka magaalada Beirut ayaa ku nuuxnuuxsaday dilka jenaraal Qaasim in aysan ahayn kaliya arrin khusaysa dalka Iiraan balse waa mid ay taabanayso guud ahaan shucuubta ku nool dalalka bariga dhexe ayuu hadalkiisa raaciyay Sheekh Xasan Nasrullah. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda Iiraan ay ku hanjabtay in ay u argudi doonto jenaraal Qaasim Suleymaani oo dhowaan lagu dilay meel u dhow madaarka magaalada Baghdad. maalintii Jimcaha ayay ahayd markii ciidamada dowladda Mareykanka gantaal ay ku dileen jenaraal Qaasim Suleymaani xilli uu ka soo degayay madaarka caalamiga ah ee magaalada Baghdad. dowladda Iiraan maleeshiyaadka Shiicada ee raacsan dowladda Iiraan ee ku sugan dalalka Lubnaan, Ciraaq iyo Yemen iyo waliba guud ahaan shucuubta Shiicada Muslimka ayaa si weyn uga carooday dilka loo geystay hogaamiyihii xoogaga Qudus oo isku xirayay maleeshiyaadka Shiicada ee ku sugan mandiqada bariga dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.